dhammaantiin saaxiib al aad baa idin salaam July iyo Bitcoin baa rabaa insha Allah inaan update idinka siiyo news ka rabaa insha Allah inaan idinka dabageeyo saddex qodob kaliya rabaa saaxiib inaad taabto exchange loo yaqaano MTGOX baa wuxuu bilaabay dadka lacagaha ku lahaa inuu bishan July lacagaha u celin doono exchange-gan saaxiib yaa 2014 baa la hagareeyay wuxuu xilliga maamulayay 70% Bitcoin ku dunida taariikh exchange-ga baa maamulayay waa la hagareeyay 6 jeer baa la hagareeyay intuu dhaxay 2011 ilaa 2014 dabcan coinan waxa weeye Bitcoin u badan baa xilligaasi hawada ka baxay marka dadka lacagta ku lahaa oo creatorska July-dan buu bilaabaya inuu lacagaha u cesho update baa idinka kaga haya oo la fili doono dynamic la suuqa inuu saameeyo oo waliba mataqaana coinka loo yaqaan Bitcoin update kala saaxiib waxaan idinka kaga haya Bitcoin price-keeda oo maanta waxa weeye waa bisha 16 July soo laabto 64,000 boortii maraya which mataqaana 4% inuu kor u soo kacay qodobka ugu dambeeya waxaan isla fiirin doonaa Bitcoin 2024 conference baa wuxuu ka dhacayaa July 25 ilaa 27 magaalada Nashville ee waxa weeye gobolka Tennessee buu ka dhacayaa waxa ka soo qayb galay marka significant speakers kamida Donald J. Trump oo musharax doorashada mar dhow ugu socdan September ilaa October dhacaysa doorashada Mareykanka marka ayadana la filayo shirkaas maadaama shir aad weyn awal wuxuu ka dhacay Miami hadda magaalada baa loo soo wareejiyay marka waxa la filayaa newsidaas iyo eventigaas iyo hadalladaas meesha ka jira maadaama Donald Trump musharax yahay doorashada Mareykanka Bitcoin aad u support karayo in ay saameyn doonto insha Allah bilahan soo socdo koonka loo yaqaan Bitcoin iyo cryptocurrency guud ahaan saaxiib magacay waa Geela Bashir YouTube channel kan iyo Facebook page waxa uga hadlaa online business finance iyo kala mindset hadii inaad jeceshahay soo faal garay Bitcoin iyo cryptocurrency hadii aad u taageertid soo faal garay page-keena ama soo saaraya YouTube-keena si faad update ku dambeeya insha Allah aad u hesho dabcan dadka raba inay bartaan cilmiga cryptocurrency course baan ka diyaarnay booqo website-keena geelabashir.com academy baa ku jirto skills baa ku jirto not only cryptocurrency laakiin xirfado badan baa ku jira insha Allah ka heli doonto saaxiib hadda waxa ku jira website-ka coinmarketcap.com baa ku jira waxaan update insha Allah inaan ka dabageeyo BTC hadda waxay maraysaa 64,000 waxa ku dhow mataqaana $500 bay maraysaa dabcan 24 hour ku dambeeyay 1.68% boortii kacay which is good hadii aan gudaha ogol waxa weeye 54,000 bay ahayd bay ka soo kacday marka hadda meel fiican bay runtii bay maraysaa wali suuq saaxiibayaal correction buu ku jira oo waxa weeye halkaas bay ka taagan tahay saaxiibayaal hadda ila fiirisa newskan qodobkii labaad insha Allah uga hadla doona laakiin newskan hadda wuxuu leeyahay exchange hadda aan idin sheegay MTGOX wuxuu diray 48,000 Bitcoin buu diray waliba addressidan buu u diray marka wuxuu bilaabay inuu already qaybiyo dhowr address buu diray almost hadda already wuxuu bilaabay inuu qaybiyo mataqaana Bitcoin badan in suuqa hadda lagu soo fasaxo oo isbedel weyn uu ka dhacay marka saacad ka hor waxa weeye hadda way bilaabeen which mataqaana saameynaya waxa weeye koonka loo yaqaano Bitcoin volatility hadda mar koonka Bitcoin saameeya crypto inta kale waliba altcoins ka iyadana uu follow gareynayaan maadaama yaa koonka weyn saaxiibayaal hadii hadda isla fiirino hadii ka dhigno waxa weeye graafka last 7 days isla fiirino halkan saawjid waxa weeye 13 bishii toddobaad 2000 wuxuu mariyay contingency ku mariyay haddana waa dareemi kartaa wuxuu mariyaa 64,000 marka dabcan isbedel fiican baa wuxuu ka dhaadhacay mataqaana weekend oo waxa weeye kan loo yaqaan BTC saaxiibayaal hadii aan u gudugno qodobkan exchange-gan waxa laga leeyahay dalka Japan magaalada Tokyo laga leeyahay MTGOX wuxuu bilaabayaa inuu hadda waxa weeye dadkii lacag xilliga gashtay oo laga dhacay laga hagriyay inuu dad kula hadeeyma uu xiliyo horta wuxuu loo sugaray 750,000 oo Bitcoin burin saaxiibayaal loo sugaray 2014 xilligaas la hagriyay gabigiisa mataqaana hawada laga saaray marka finally waxa la dadkii sugayay waqti badan bay soo sugayeen 2014 ilaa hadda soo sugayeen bishan July bay rabaan inay qaybiyaan oo dadkii lacagahoodii loo celiyo mostly laba keen weeye waa BTC iyo Bitcoin labada kuma insha Allah saaxiib qaybin doonaan July-dan already way bilaabeen aniga hadda idin tusay waxa already inay laba address ay u direen Bitcoin saaxiib waxyaalo cajiibka waxa weeye xilligii la hagareynayay koonkan waxay mareysay Bitcoin $500 lacag u dhimata beeruntii bay mareysay haddana waxay maraysaa hadda maantadan 64,000 maraysaa July 16 marka dabcan waa dareemi kartaa xilligaas waxa weeye qiimaha isbedel weyn inuu waxa weeye ku dhacay hadda uu hawada soo galay marka dabcan waxay rabaan inay waxa lacagta aan ku sheegay 850,000 oo BTC in waxa weeye ay u celiyaan waxa u dhigmataa 51.9 bilyan oo dollar bay u dhigmataa lacagta laga rabaa in saaxiibayaal ay u celiyaan in dad tiradoodu aad u tiro badan saaxiibayaal dadkii lacagta u celiyaan tirada wax dhantaa 127,000 oo creators dad ah ba ka suugayo processkaas maantadan bilaabeenba in waxa weeye lacagta ay soo gaar marka maxay ka dhigan tahay dabcan waxay ka dhigan tahay suuqa inuu soo gali doonto insha Allah BTC badan inuu suuqa soo gali doonto oo buy pressure badan oo halkaas oo ka dhac doono dad waxay leeyihiin wali mataqaana suuqa beer weydana waxay leeyihiin waxa weeye beer buu suuqa waxa weeye si ahaanaya laakiin waxa la filayaa Agostadan dhexdeedaba inuu suuqa isbedel ku dhaco oo waxa weeye maadaama eventska hadda aan idin sheegay exchange-gan lacag qaybinayo waxa weeye qodobkeena labaad noo saddexaad noo soo ayada in saameyn ku yeelan doonto qodobkeena
saacadii aan ku soo gogolnay Donald Trump wuxuu ku dhawaaqay inuu ka soo qayb gali doono shirka weyn Bitcoin dunida ka dhaco si toos official Donald Trump speaker ka noqon wali significant speaker buu noqonaya waa shirka ugu weyn oo saaxiibayaal Bitcoin dunida ka dhaco magaalada oo ka dhacay Nashville gobolka Tennessee July 5 kada bilaabanaya ilaa iyo 20 dhalinyarada Mareykanka joogta waxa kula talinaya shirka laga qayb galo tigidhada uu arkay waxa weeye waa la jaranaya marka insha Allah waxaan rajaynayaa tigidhka inaan ka qabsano aniga weegaan waxaan ka qayb galay midkaas mid lamid Ethereum shirka weyn Europe ka dhaco baa ka qayb Ethereum baa looga hadlayay inta kan oo kala weeye waliba dadka Ethereum ka taageeray weeye shirkan oo ka dhac jiray magaalada Paris laakiin Paris waxa hadda ka jira Olympic-kadii baa lagu qabanaya marka cariidi badan iyo jam badan baa ka jira dad badan ma qaadi karo marka process buu soo wareegsadeen oo isla Faransiis looga hadlo in ka badan saaxiibayaal 7,000 oo qof baa waxa shirkan ka soo qayb gashay dabcan wali wax Soomaaliya kuma arag oo jeclaa inaan wax Soomaaliya ku arko shanbari oo soconaya tigidhkan wuxuu ahaa $500 buu ahaa halka maalin wuxuu ahaa $125 marka maxaa ka faa'iido dabcan waxa laga faa'iidaa networking waxa laga faa'iidaa waxa weeye aqoon badan dadka community ku dhex jira baa gudaha u galisa groups badan bay leeyihiin waxa weyn baa laga hadlay in application la soo wada sida Facebook socialka u shaqeeyo kale laakiin decentralized waxa weeye crypto community ay leeyihiin waayo Facebookyadan iyo bangiyadan iyo wali ay rabaan in madaxa uga istaagaan suuqyada loo yaqaan cryptocurrency oo mar rabaan si platform waxa weeye algorithm-kooda waxa la soo basic dadka laga qariya xataa inay arkaan marka dabcan dhalinyarada waxaan kula shirka in ay xiraan marka saaxiib shirkan inuu ka soo qayb galo Donald Trump inta kaliya wax u tahay waxa weeye fursad weyn waxa weeye news fiican oo aan taqaana Bitcoin waayo madaxweynaha Mareykanka oo ninka u tartamaya oo Joe Biden buu la tartamaya haduu guuleystana waxa weeye saameyn badan bay yeelanaysaa Bitcoin wadaas isku shiriri kartaa madaxweynaha Donald Trump si toos asaga Bitcoin u taageeraa in lacag caadi ah looga dhigto barnaamijkeeda runtii dadka aadka waxa u taageero kamid yahay marka crypto community aad buu jecel yihiin Donald Trump markii Biden noo fiiriyo asaga wali uu ka meereysanaya laakiin Trump boqolkiiba aad buu taageeraa saxbi 2020 shirkan naxwa Bitcoin-ka waxa ciwaan u ahaa madaxweynaha El Salvador markuu ku dhawaaqay jiray in wadankiisa uu toos lacagtooda currency laga isticmaalo wadanka El Salvador waa Bitcoin way ba news u ahaan jiray ciwaano u ahaan jiray laakiin hadda si toos ah bay noqonaysaa waxa weeye madaxda adduunka waa weyn inay uga soo qayb galaan marka saaxiibaal saddexda qodob hadda waxa weeye Bitcoin newskeeda ah isbuucan hadda aan ku jirnay insha Allah wixii update insha Allah soo kordhina waa idin la wadaagaya wali hadda suuqa waxa week hore muuqaalan soo galiyay wali laba week hore iyo week ama dhayna dhahaya hal la gashto marka 54 marisay haddana 64 bay maraysaa ilaa 56 bay maraysaa markaas aan waxaan ka soo hadlay marka hadda dabcan waxa moodaa in wali hore u socdo laakiin dadka qorada waxay wali August hoos u aadaya dadna waxay August ilaa 88 buu soo taaban doona laakiin I think ani waxaan maleynayaa September ilaa iyo October xilligaas buu waxa weeye bull rank ugu fiican suuqan saaxiibayaal aan bilaaban doona oo faa'iido badan insha Allah gaar doona marka update u dambeysay hadda Bitcoin inta saaxiibayaal aad bay insalaan oo maasantii